wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdilaahi Axmed ayaa maanta xariga ka jaray dhismo cusub oo laga bineeyay Mustul Jaamaca magaalada Ceerigaabo munaasabadii xarig jaridu ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Ceerigaabo ayaa waxa ugu horeyn baa ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Qarni Afriqi Sheikh Maxamed Ali Geedi iyo wakiilka hay'adda Qarni Afriqi ee gobolka Sanaag Sheikh Cabdilaahi Maxamed Axmed masaajidkan wuxuu qaadayaa ilaa iyo 3300 qof buu qaadayaa masaajidkan 3300 qof ayuu qaadayaa masaajidku wuxuu leeyahay weysooyinkii buu leeyahay 10 musqulood buu leeyahay wuxuu leeyahay markas dhan oo ka dambeeya oo madrasad ah 5 fasal buu leeyahay xafiiskii buu leeyahay maktabadii buu leeyahay gurigii imaamku leeyahay gurigii muadinku leeyahay 6 dukaan oo qof leeyahay moofu leeyahay loo sameeyay agoonta ceel buu leeyahay yar oo loo qoday magaalada dibadda looga qoday intaasoo masaajidka wada socday ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala reer Ceerigaabo u keenay waxaynu ducayn doonaa ninkii samafalka ahaa waxay hay'adda geeska Afrika ka fulisay gobolka Sanaag guud ahaan mashaariic aad u tiro badan oo koobsanaya dhammaan baahiyaha aasaasiga ah ee aadamaha goobaha cibaadada waxbarashada caafimaadka biyaha iyo kafaalada agoomaha ayaguna munaasabada xarig jarida ka hadlay xubno isugu jiray cilmi awdi ganacsato waayeel madax dhaqameed kuwaasoo halkaasi dhamaantood uga mahad celiyay cid kastoo ka soo shaqaysay dhismahan cusub ee Mustul Jaamaca Ceerigaabo waxa isaguna halkaasi ka hadlay Shidheer Xamse Faarax Geedi oo ku hadlayay afka shirkadda fulisay dhismaha masjidka ee Amaana ka runtii haddaan shirkadda ANK Construction Engineering ama Amaana Construction Engineering oo ka mid ah runtii shirkadaha waaweyn ee ka hana qaaday Jamhuuriyadda Soomaaliland muddooyinkii u dambeeyay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu nagu galaday inaan mashruucan runtii hirgelintiisa annaga Ilaahay gacanteeda soo geliya hadaan shirkadaas waxyaabaha muhiimka ah runtii xusi kara waxa ka mid ah dhismaha arkaysana inta leeg waxaan filayaa lacagtiisu inaanay ka yarayn markii aan soo celi sameynay $1,200,000 baa galay $1,200,000 ayaan halkan gelinay alaab ahaan iyo kharash ahaan intaba dhammaan alaabtii aan soo iibinay waxa aan qaybta u lahayd 80% wixii yaray la waayay mar 80% waxa aan isku daynaa inaan siino ganacsatada gobolka gaar ahaan degmada magana runtii culays badan naga qaadeen ayaa ka soo qaaday ama boosaas ha noqoto ama berbera ha noqoto ama meel kale ha noqoto marka procurement-kii waxa runtii la iibinayay maan isku daynaa dhamaantaan aan ka faa'iideysano waxaan isku daynaa dadka gobolka ay ugu dagarsaantan u yeernay alaabta inay ka faa'iideeyaan anagana noo soo fududeeyaan waxa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Tiimbaro waxa loo tagay ninka muxsinka ee khayrka ee reer Gadar yaani noqon waan Ceerigaabo noqon waan deegaanka noqon waan Soomaali ahay wuxuu ka aqbalay inuu dhiso masjidka Ceerigaabo waxa masaajidku jarjarooyin badan buu soo maray waa laga sheekeeyay waxa ugu dambeeyay Sheekh Cabdiraxmaan Ilaahay raalliha ka ahaado waxa la idinka doonayaa cidii kale oo masaajidkan qacantooda galawna sidii Sheekh Cabdiraxmaan u waday iyo sidoo dadka isugu waday inaa wadaan ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdilaahi Axmed dhammaanba ciddii ka qayb qaadatay dhismaha masjidkan Yuusuf Cabdi Xasan Cabdi telefishinka caalamiga Universal magaalada Ceerigaabo